qofku markuu cusub yahay ee dalka Mareykanka u yimaado caqabadaha uu kala kulmo maxay tahay haddii aad maqli jirtay qofkaasi Mareykan buu aaday oo oran jirtay hebel maanta haddii Mareykan uu galay maanta buu faqrigii dhiisha tuuray aad maqli jirtay dhibaatooyinka ugu horeeya ee qofka qabsada waxay yihiin ayaan inii wadaa haddii ay hay'ad ku keentay oo sifo sharciya ah dalka Mareykanka aad ku soo gashay oo gobol cidla ah oo qof Soomaaliya una joogin lagu geeyo lagu yiraahdo maanta laga bilaabo waad shaqo tagi kartaa maadaama ay sharcigaagii oo dhan uu ku soo dhacay oo hay'adii wadanka ku keentay ay shaqadii ay ku geyso maalintay hay'adaasi shaqada ay ku geyso ayaa kuugu dambaysa faraha inay ka qaadaysaa haddaba dhibaatada ugu weyn ee qofka asiibta maxay tahay intaan hawsha gudagelin waxaan ka codsanayaa hadda channelkayga ku cusub tahay oo markii kuugu horeysay ee soo boqotay tahay waxaan ka codsanayaa fiidiyoga si share garee asxaabtada la wadaag like-tuna waa bilaash subscribe-kuna waa bilaash raygaguna waa muhiim comment-ka igu soo qor markay hay'adu saa kaaga dhaqaaqdo ay kaaga tagto waxa ku bilaabmaya rafaadkii ugu weynaa ayaa ku bilaabmaya rafaadkaasi muxuu yahay Mareykanka qof kastiba baabuur buu ku shaqo tagaa baabuur buu ku soo noqdaa shaqadu meeshay ku jirto waa 40 daqiiqo ilaa saacad ayay ku jirtaa meesha aad degan tahay waa inuu qofku ka soo doono markaad bilaab baabuur tahay oo ku geeya goobtii shaqadu markay dhamaatana waa inuu qofkaasi ku soo qaadaa oo ku keenaa guriga igoo shaqadii ku cusub oo hadda bilaabay shaqadii haddii ninkii shaqada ku geynayay ee ka soo celinayay uu fasax shirkadii ka qaato maxaad samaynaysaa ilaan qof aad ku geeyo shaqadii ma haysatide oo waa kan ninkii ku geynayay ka soo fadhiistay adiga maxaa ku xara ku darso hay'adii shaqadan ku geysay dawladdii kirada ka bixinaysay cuntada ku soo direysay message dheer baa qorto waxay ku tiri ninkii hebel maanta shaqo bilaabay waxa weeyaan wax allaaliye waxaad u diri kartaa in ma jirto isaga wax walba iska dabraya oo shaqo bilaabay ninkii shaqada ku geynayna waa kan shaqadii ka soo fadhiistay meeshaad joogtay waa gobol yar oo cidla oo Soomaaliba joogin caqabadaha qofka dhib ku noqda markuu Mareykanka ku cusub yahay gaari uu cunto xitaa ku doonto ma haysto baraf baa daaya dhaxantii adduunka daayisa dukaanku cunto u doonays iraahdo wuxuu u jiraa meel 30 daqiiqo baabuurka uu ku tagi karo lugtana saacad iyo abafiya wax ka badan hadhow markuu soo noqdana intaa in leeg TV guriga uma dhex yaalo wax uu internet u isticmaalay ma jirto waxa ku imanaysa Mareykan maxay soo watay oo ay keenay kiradii guriga haddaad iska bixin weydo dadkan waxay yaqaanaan inay alaabtaada banaanka ku soo dhigaan ayaa kreditka computer lagu qorayaa kirooyinka ma bixiyo hadhow toolana state ka tagtay ee guri ka karaysa astiraado waxa hoosta ku qoran ninkan kirooyinka ma bixiyaba hadda ma hayna markuu faal noqdo gurigu ayaan ka kareynaa bal gulay wariyaab yaa makaad ba ku imanaya markaas waxaan ku yiri qofku isku wareeraya ama kulayl baa dhacaya oo ma lugeyn karayo oo dukaanka ma tagi karayo rafaad baa ku bilaabmaya laakiin marka dambe ee lugahaaga ku istaagto ee wax walba sidii aad rabtay ay ku noqdaan waxaad oranaysaa Mareykan waa dahab